ninkani waa tuug xeeladaysta ah. Iska ilaali haddaad joogto magaalooyinka inaad tani kugu dhacdo. Way ka dhacdaa magaalooyinka waaweyn ee Soomaalida oo dhan. Imika ninkani baaskiilada ayuu soo kaxaystay, gaadhigii ayuu xagga daba kaga dhuftay. Wuxuu rabaa alaabta xagga hore u taalla inuu saaxiibkii la baxo. Waa laba tuug oo soo heshiiyey. Had iyo jeer waxa dhacda haddaad aragto gaadhigaaga xagga daba in lagaga dhufto wax ama nin idhaahdo waan raacaya xagga daba iska furo, ha yeelin. Tuug xeeladaysan ayaa jirta, ka taxaddar. Imika ninkii daacadii weeye askariga ahaa, alaabtiisii baa la dhacay. Isna tuuggii buu lagu qabanaya uu leeyahay ma nabad qabtaa, dhakhtar ma ku geeyaa, ina markuu kaxeeya maya waa caafimaad qabaa. Halka ninkaa wagdaha reesii ordaya orodka foosha xun dhina uu dahabkii gaadhiga xagga hore u saaraa uu la baxsaday. Kan tuuggii ayuu daacadii weli wuxuu leeyahay wax ma qabtaa, weli ma ku qaadaa, ma subtaa inaad socon karayso. Xataa gaadhigiisii garaafa uu gaadhsiiyey, laakiinse ma weydiinayo. Waa nin wanaagsan oo wuxuu ka naxayaa. Wuxuu isleeyahay ninkan dhibaataa soo gaadhay. Wuu la yaabay. Ninkan gaadhigiisii garaafada u geystay haddana iska dhaqaaqay. Waayo jugta aad u xumayd. Gaadhigiisii buu fuulay. Odhaa iyo xerada alaabtiisii maba taallaba. Xaggan buu eegay, xagga buu fiiriyey, ma jirto. Maxaad ii dhibatay? Yaab iyo amakaag. War ilaa intan oo kale. War waa ileen marka waxa kugu daran laga caqli badiyo. Adigoo isu haysta reer magaal oo gaadhi qurux badan wata oo magaalooyinka Soomaalida mid ka mid ah ku nool. Marka sida lagu dardaro waa cajaayib. Weliba tuugadu bisha Ramadaan way soo laba laxaadsadaan ama way ka soo daraan intoodii hore. oo iyaga laftigooda dadku itusoomiyahay waxay rabaan waxay dadka dhaafiyaan. Ka taxadir. Hadda ninkii waa iska dhaqaaqay. Gaadhiga watay waana dareemay in la dirdiray oo labadii nin ka kale mu arkayn ninkii baaskilada ku dhuftay inuu barnaamijka waday waa dareemay. Ninkii halkan iska dhigtay baaskiladiisii tuugaha. Halkan ayay ku balansanaayeen. Ninkii alaabta u soo qaaday. Tuugtu inay tuuganimadu xunta waxaad ku garanaysaa xataa iyaga iskhiyaameeya. Inkastay Soomaalidu tiraahdo tuug ma xado. Haddana imika waxaan ku tusayaa tuugan oo tuuggii kala xadaya. Wuxuu yidhi alaabtaan kala qaybsanay bacay noo dooran ku kala qaybsano. Intii uu maqnaa ayuu shantadii furay ila waa tuugo. Tuuganimada ma istaagto ama walaalka ama saaxiibka mid walba waa dardaraysa. Halkan buu la istaagay. Jaajuurkaasuu ku qarsanaya ama lebankaa kolba waxaad u taqaano ama bulkeeti. Abka doonta Soomaaliya waa aqoon ayuu dahabkii ku qarsaday. Beddelkeedana dhagaxaan iyo bulkeeti jabay ayuu ugu guray. Ninkii daacadda maahay waa laba tuuguna kii laga caqliga badiyey. Wuxuu soo wataa hadda inuu soo qaato kii shiro ay ku kala qaybsadaan 40 midho dahabka. Bahashii buu furay. Wuxuu imika igu horeyso bahasha furay. oo bahasha ma dhagaxaanta baa ku jiray. Waxaynu maanta oo dhan ku dhimanaynay. Labadoodii baa isaga wuxuu war inaan indhahaygaan ku arkay. Gaadhiga markaan kala soo digay waxaan dahabaa. Malaa sixir buu ahaa guri naga daa. Ninka sixirool waayo markii laga xaday buu wixii dhagaxa ka dhigay. Aniga daawul meesha ku jiraan. Garo alaabtira uu qarsaday. Baaskilada waxa lahaa kan wagdahalay markii hore la soo cararay shandad dahab ku jiro. Kii kale wuxuu iska dhigay wax iska tagaya. Waa nagu kala kaxay budniyo maanta way fashilantay. Horaan uga sii soconaynaa. Abbaar markuu socday wuu kii dib u fiiriyey. Wuxuu arkay ninkii uu ka caqliga badiyey oo run mooday iska tagay. Halkaa markuu ka baxay dib buu iska soo noqday ninkii tuuga ahaa. Labada tuug mid waxa weeye waa saajin ama generaal meesha ka gaadhay ka kalena waa dable. Kii dablaha ugu dirdiray. Dahabkii buu aayar kala soo baxay bulkeetiga ama jaajuurkii ama lebankii. Aayar buu gacmaha iskaga soo qaatay. Wuxuu isleeyahay maanta ninkan waad ka caqli badisay. Ninkii daacadda ahaa ee askariga ahaa gaadhiga watay ee la dhacay markuu magaaladii oo dhan soo xijiyey ee wax alliyaalay wuxuu arkay tuugtii waayey. Waa iska soo xarooday. Meeshii yare gurigiisii buu iska yimi. Halkaas ayuu yabaalkii la fadhiyaa. Kii kale tuugga ahaa ee tuugga kala sii dhacay ayaa arkay. Saaxiibkiisii uu sii dhacay iyo nin kale oo meel halkan ku hadlayo sheekadii ka sheekaynaya. Wala ninkii hebel baa dhacay soo qabo. Dib buu noqday wuxuu yiri wallahi qorigaaga waa la qabtay. Waa cararay. Guri halkan oo bilaadan oo furan buu iska galay. Burka oo baalka badiyeen xagga dambe uma eegin. Odhay xerada askariga oo alaabta ka soo dhacay waa fadhiya. Dhab. Xoolo xalaali ma lumaan baan maqli jiray. Xoolo xalaali
ma badaan. Hadda ninkii tuugga waa hayaa alaabtiisii, tuuggiina gacanta ayuu ku hayaa oo rugta kutubta ama saldhigga dhexe ayuu geyn doonaa. Daawadee haddii aad hore noola joogtay waad ku mahadsantay, haddii kalena nagu soo biirsi muuqaalada xiisaha badan leenalka ku soo gudjira inaad qayb uga noqoto lana wadaaga saxaabtaada aad baad u mahadsan tahay.